السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعاني wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka soo dhawaada nolosha ibni aadamka oo dhan waxay ku hareeraysan tahay saddex shay oo kaliya intana muuqaalka u guda galin fadlan daan ugu cusubtaan usoo biir janaalka subscribe noo saar muuqaalka inoo laagay la wadaag saaxiibadaada oo ku mahadsantihiin taageeradiina qaybta hoose ka mid inuu rab wixii fikir ahaydii saddex shay ayaa nolosha sideeda bataatan bahagta maamusha ka dhigta mid aad iyo aad u sareysa saddexda shay oo noloshaada mar walba ku soo noqnoqonaya aadna u baahan tahay si caqliyeysan xigmadeysan maskax iyo maalmahana aad ugu dabaqdo noloshaada waxay kala yihiin kow doorashada labo fursadda saddex isbeddelka saddexdaasi mar walba noloshaada kama dhamaadaan haddaan ka hormarno doorashada mar walba waxaad dooratid ayaad adiguna noqon doontaa qof mar walba ku dhex jira haddii aad tahay qof mar walba jecel inuu asigu nafsadiisa horumariyo waxay ku xiran tahay waxaad markaas adigu dooratay ood jeceshahay inaad nafsadaada ku horumarisid tusaale ahaan waxaad tahay arday dhigta jaamacad ardayga jaamacadda dhigta waxaa laga rabaa maadada uu doortay inuu si dhab ah uga run sheego inuu si dhab ah oo xaqiiqa u barto uu niyadiisa u siiyo wax walba oo ku tacalluqana uu mar walba ka ag dhowaado haddii tusaale ahaan caafimaadka oo kale maada caafimaad dooratay mar walba waa inaad tahay qof ku mashquulsan wax walba oo ku saabsan caafimaadka haddaad public health dooratay haddaad medicine dooratay haddaad waxaa dooratay waa inaad noqotaa qof ku sheegan oo kasoo muuqda midda labaad fursaddu sideeda bataataba mar walba kuma soo marto mar walba fursaddu waxay tahay mid kooban hal mar ayay kusoo martaa mar labaadna kuma soo marto waxaad u shalaayi doontaa waqti kusoo maray oo aadan ka faa'iideysan noloshaadana waxaad dhihi doontaa alla waagaas haddaan ka faa'iideysan lahaa waagaas waxbaan ahaan lahaa haddeer laakiin waagaas kamaada faa'iideysan haddana waad u shalaayaysaa sabab waayo waqtigaaga adiga ayaa siseejiyey calafkaagana ma uusan ahayn midda saddexaad oo ah isbeddelka mar walba noloshaada oo dhan isbeddel ayaa ku dhacaya bal ibni aadamka oo dhan ayaa ah mid isbeddelku joogto u yahay mar walba ibni aadamku wuxuu yahay mid joogto ama saaxiib la ah isbeddelka xilliyada nolosha kala duwan maciishada waxay rabtaa noqoto isbeddelku mar walba wuu jiraa doorashada sideeda bataatanba waa mid u baahan inaad si maskaxiyeysan u dooratid fursadda waa mid u baahan inaad si caqliyeysan oo karti leh iyo dadnimo leh aad uga faa'iideysatid isbeddelkana waa inaad noqon kartaa qof la jaan qaada nolosha noocyadeeda kala duwan haddii maanta kugu dhaco isbeddel ama aad tahay qof isbeddel walba ku dhaca aan u adkeysan karin waxaad u baahan tahay noloshaada inaad dhistid ka dhigtid nolol u diyaarsan la qabsiga waayaha nololeed doorashadaada hagaaji si fursadaadu u noqoto fursad aad mar walba ka faa'iideysan kartid fursadaadana ka faa'iideyso si isbeddelku mar walba uusan kuu saameyn oo aad noqotid qof la qabsan kara isbeddelka socda waayaha socda wax walbana noloshiisa ku dabaqi kara noloshaada waxaad dabaqi kartaa mar walba oo aad ka fekertid xaaladaad ku sugan tahay oo aad hagaajisatid saddexda shay aan kuu soo sheegay mar kale ayaan kugu celinayaa waxaan ku leeyahay doorashadaada hagaaji fursadaada ka faa'iideyso isbeddelkana isku day inaad la qabsatid waayo mar walba ma ahan mid iska taagan